بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كسر هذا بلا أكاديمي ويدين سو قد بنيساء تابر مدو كوبان سعون دونا أو كسابسان حيالدها أما حرفدها مارين وقتك. Section 2 أما قيبت اللباد qaybtan waxaynu ku eegi doonaa time quotes ama xigmadaha waqtiga laga qoray. Haddii aynu ku horeyno ta u horeysa a big difference between money and time. You always know how much money you have, but you don't know how much time you have. Always value your time. Xigmadan waxa uu micnaheedu yahay badanaa waxaad taqaan dakhliga lacageed ee jeebkaaga ku jira ama aad haysato, balse ma garan kartid waqtiga aad haysataa inta uu le'eg yahay. Mar walba mudnaanta qiimaha sii waqtigaaga. Dulucda ama ujeedada murtidani waxa uu yahay in sida aynu uga warhayno dhaqdhaqaaqa maaliyadeed ee jeebabkeena si ka badan aynu u la jeclayno saacadaha, daqiiqadaha iyo ilbiriqsiyada kooban ee aynu adduunyadan ku leenahay. Haddii aynu ka gudubno murtidaas oo aynu ta ku xigto gudubno, murtida ku xigtaana waxa ay odhanaysaa if you plan your time you've designed your roadmap of life. oo micnaheedu noqonayo haddii aad qorshayso waqtigaaga waxaad nashqadaysatay jid khariidadeedka ama hanaanka socodka noloshaada. Ujeedada ay xigmadani gudbinaysaa waxay tahay in hanaanka aad u maaraysato waqtigu kaa caawinayo hanashada yoolasha iyo ahdaafta kuu dejisan, sidoo kalena kuu noqonayo jid sax ah oo aad u marto guulaha aad damacsan tahay ka dhawayntooda adduunyadaada iyo aakhiradaadaba. Tasaddexaad haddii aynu sii gudubno waxa aynu odhanaysaa time equal life. Therefore waste your time and waste of your life, or master your time and master your life. oo micnaheedu yahay waqtigaagu waa noloshaada. Haddii aad lumiso waxaad lumisay noloshaada, haddii aad hanato waxaad hanatay noloshaada. Ujeedada guud ee ay daaran tahay murtidanina waa hadba sidaad u adeegsato una qaadato waqtigaagu inay tahay qaabka aad uga faa'iideysanayso noloshaada. Haddii aad arrimo muhiim ah oo u qalma in la sameeyo aad ku foogan tahay waqtiyada aad firaaqada leedahay, sida cibaado, wax akhris, aqoon kororsi iyo taakulayn, waxaad maalgashatay saacadahaagii, daqiiqadahaagii iyo ilbiriqsiyadii aad dunida ku lahayd. Haddii si aad samayso waxyaalo aan qiimo culus lahayn, waxaad galaafatay daqiiqado aad raad wanaagsan reebi lahayd. Murtida afraad haddaynu ku sii soconno waxay odhanaysaa iyaduna lack of direction, not lack of time, is the problem. We all have 24 hours days. oo micnaheedu yahay mushkiladdu waqti la'aan maaha waa jiha la'aan. Dhammaanteen waxaynu haysanaa oo ka simannahay 24 saacadood. Ujeedada odhah murtiyeedkan haddii aynu wax yar falanqayno waxaynu aragnaa marar badan inagoo dhaliilo iyo eedo dusha ka saarayna waqtiga. Tusaale ahaan waxaynu nidhaa waqtigaa ay ciiray, waayaha igu ciiray, waqtigiibaa barakadii laga qaaday iyo erayo kale oo la halmaala. waxaa suurtagal ah ruuxa erayadan ku calaacalaya inuu yahay ruux si xun ula dhaqmo waqtigan u dhaleecaynayo. Tusaale ahaan inuu yahay balwadiiste ama ruux dunida dulsaar ku ah oo aan wax soo saar lahayn. Haddaba intaynaan dhaleecayn waqtiga miyaynu nidaaminno howlaha aynu qabanno ilaa waxba kama bedeli karno socodka waqtigee. Sidoo kale miyaynu diyaarsanno oo qorshayno mashaariic iyo barnaamijyo horumarineed oo nafteena iyo ta bulshada inagu xeeranba aynu wax ugu qabanayno. Haddii aynu murtida taa ku xigta u sii gudubno
waxa ay tahay time flies over us but leaves its shadow behind. oo micnaheedu yahay waqtigu waa uu duulaa ama dhammaadaa waxaanu inaga tagaa raadkiisa. ujeedka ay gudbinaysa murtideenna waxa uu yahay in natiijooyinka aynu goosanno ay badanaa ka yimaadaan waqti aynu hore usoo bixinay. tusaale ahaan haddii aynu 7 sano wax akhris iyo cilmi kororsi kusoo bixinay oo aynu si sax ah saacadaha aynu wax akhriska samaynayno u dejinay waxa aynu haysanaa ama dheefnay cilmigii aynu ka soo kororsanay wax akhriskaas. haddiise aynu saacadaha ku bixin lahayn waaga aynu wax dhiganaynay tusaale ahaan balwad ama fadhi ku dir faa'iidada aynu maanta haynaa waxay noqon lahayd abla-ableynta qabiilada iyo qabyaalad iyo faquuq iyo kala socsoc ummadaha isku midka ee muslimiinta ah oo aan wax faa'iido ah adduunyada keenin marnaba. haddaba murtidani mar walba waxay sheegaysaa sida aynu waqtigeena marka hore uga faa'iideysano inuu isna natiijada inoo siinayo. intaas waxaynu kusoo xiri doonaa qaybtii 2 ee koorskeena time management. waad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.